saaxiib aan kula dardaarmo, wax fashil la yidhaa ma jiro, laakiin waxaa jira nin gunta hoose ka soo bilaabay oo halkaa inuu sii joogo doortay. Ilmuhu waxay ku ciyaaraan nolosha markii ay yaryar yihiin, iyagoon ogeyn in noloshu ku ciyaari doonto markay weynaadaan. Damacyadu waa sida carruur yaryar, mar allaala markii aan koolkoolinno in ka badan ayay naga doonayaan. Dooro erayadaada ka hor intaadan hadlin, doorashadana waqti ku filan si ay u bislaato, maadaama erayadu la mid yihiin miro u baahan waqti ku filan oo ay ku koraan. Ha ku cuslayn maalintaada warwarka berri, waayo warwarka berrito ma imaan karo, laakiin farxadda maanta ayuu kaa qaadan doonaa. Nolosha rajo la'aan suurtagal maahan. Rajadu waa daaqad yar oo aragti ballaaran leh. Rajo weyn ayaa abuurta dad waaweyn. Rajadu waa nasinta nafta waqtiyada dhibka iyo dhibaatooyinka. Waa dareen shucuur ah oo qofka ka dhiga mid hididiilo leh, kaas oo uu rajaynayo in uu natiijo wax ku ool ah ka soo baxdo dhacdooyinka iyo wareegyada waqtiga. Rajadu waxay ku sugnaatay Qur'aankeena Kariimka, waxayna ku lamaan tahay cibaadada Alle. Eebbe kor ahaayo wuxuu yidhi: acuudu billaahi min ashaytaani arajiim, faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih falyacmal camalan saalixaa. Qofkii rajaynaya la kulanka Alle ha camal falo camal wanaagsan. Cibaadada Rabbina yuusan ugu shirag yeelin qof kale. Qofku arag la'aan buu noolaan karaa, laakiin rajo la'aan ma noolaan karo. Haddii ay kugu hareeraysan yihiin dhalanteed, waswaas, warwar iyo baqdin, carabkaaga ku qoy xuska Eebbe. Guulayso saaxiib.